الشعب أكله الشيخ بمانتي أما ودنك وديس هكون ولا أما دودها كيما آد باللو قدرية شيخ مركل هذا قف على دورنا يا أمدي الصومالية أما الله دورنا رئيس الوزراء أما وزير أما برلمان علماء كما عرفنا مركل أمدا سؤال ما أمدا إلى الله سبحانه وتعالى علماء دورته والرئيس كنوا نقدان والبرلمان كنوا قلان والدين كنوا ماملان الله سبحانه وتعالى نود دعاء شيخنا الفاضل آدي أدوى كأجمع حلنا عني أبو فوسان به إن البرنامج هناك قاطي وحنكون صورتنا إياه شيخ محمود شيخ حسن أبو ضلحة علماء إلهي فتنة الله إلى عليو ماشي وحكا قبن كران أو الدين كأنفع كران أو أي دل كأنفع كران أو أي دب كأنفع كران الله تبارك وتعالى هجان كان نقول لي ماشي أي فتن مركي أيوه أي قبطان فتن كوين ومد أسوة تشيدي كران إلهي تبارك وتعالى هكا إلى عليو أما أيجا أي كف النوبي كران كنت دعاء قبطة ودعاء سويان دعاء حقيقة أنا ودعاء ويه waxaad ogtihiin oo maanta aniga Masar baan deganay aniga Shaxambali intii hadda qadiyadii Mursi waan joognay oo goob joog baan u ahayn culimadu way kula taliyeen waxay dhaheen Shaab Isxaaq al-Huwayni baa kamid ah ragii kolka hore talooyinka siiyay oo yiri xaaladan muslimiintu marayso hadda muslimiintu meesha marayaan waa xaalad adag saadaradeed waa la idinku tajrubeynayaaye waxaa la doonayaa wadadii looga takhalusi lahaa dacwada iyo islaamiyiinta idinku hadda madaxweynenimo iyo isa soo dhigida bulshadii ka dhaxda kaga jira madaaristii jaamacaadkii meelaha wasaaradaha caadiga ah qaabka idinku jooga laakiin qof anaga dhinacna xagga naga dhinacna hadda ha la hormariyo 5 sano soo socdana hadii loo arko markaa maslaxad inay dad إسلاميين أي موضوع أي وجانين كران هلا سمايو شيخ لنا عالم أبوها إن أركت دير أبوها سلا درادت أنا غلطت أن التجربة وين صومرتي أو محاكمة الإسلام كان صومرتي أو الجزائر بي صومرتي أو هذا واتر المرسي بي مرتي وحاول يهرتا مهمة معها يا مسلمين مهمة معها ولا بيا وحنا قد معها مهمة وين وحاول والولاد كان قارته وحسائدين كرا إلهي النوسو ددتشيو قارته إنو ماشا إمالاي بلشبه فتنة كبضا أي كيمان كرتنا إلهي نوغو مديو ورطورك واقعة هي الدعاء الصحبة قارك علميسا أسميسا هورتا وامد داسه حماسة إيو ولاد وحنا نوغو دينا وح معنى أكو مفردينو بلشب بسل أو مجتمع بسل أو دينهان بسل أو أخلاقهان بسل أو الولاء والبراء بسل مجتمع عاصبة الشريعة الإسلامية تطبيق له يضروا حقانا أخلاق إلى كدسان هنت اللي قد هذه كراية إلى المصيبة كبضا أي كبلتاي لبفدنا هذي مصلحة في النكيريسو أو في الدولة تشرتين متكبر الكيريسو لفت هذا لما أقل إلهي تبارك وتعالى وعن كبرنا ummadda muslimiinta inuu diintooda uu ku soo dabaalo akhlaaqooda uu ku soo dabaalo dalkoodana meel alla meelay joogaanba amni iyo nabadgelyo uu oga dhigo uguna dhiiba gacantana u geliyo allah tabaaraka wa tacaala cidda uu raalliga oga yahay kitaabkiisana ku hogaaminaysa tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa dhulkeennii aan u dhalanay ee ka imaanay inuu nooga ilaaliyo ama nooga qaboojiyo noogana isaajiyo dagaalada ehliga ah oo hadda markaad website-yada aqrido aad arkayso halka maanta intaasaa ka dhacday intaasaa ku dhimatay laba qabiil ba isku duulay waxaasay isku haystaan ilaahay tabaaraka watacaala dhiigga ha ka kala joojiyo ilaahay tabaaraka watacaala ha nooga qaado guumaysiga iyo dadka maxaa la yidhahdaa intaasoo dowladood baad ogtihiin maanta inay waddankeeni maamulanayaan oo aan laydinka sheekaynaynin waxaasna waa inaga kala tageenna iyo tafaruqeena iyo reer hebel iyo yaa laga dhigayaa ra-iisul wasaare war yaa laga dhigi lahaa hal nin un baa laga dhigi lahaa ra-iisul wasaare hal nin un baa madaxweyne laga dhigi lahaa ummad dhan oon is-aaminin karin marka waa in dalkoodina la qaato diintoodina lagu soo duulo la baabi'iyo dadnimadoodi iyo sharaftoodina maxaa la yidhahdaa meel walba ay ku baaba'aano saxaraha libiya iyo badda mataqaanaa casa ee madow in maalinba boqolaal mayd ah
in laga mataqaana ay soo tuuraan oo laga ganacsado musiibada intaa dhan dad daris ahoo aanu dawlado aan daris ahayn oo annagu aanu hogaaminaynay inay maanta maxaa la yidhahdaa wax xilla rabo laga sameeyo haddanana aan la soo jeedin haddanana aan lagu soo baraarugsanayn ciddii war ka daaya dhahdana masaajidada lagu toogto ayagoo wada rukuucsan iyo ayagoo banaanka wada maraya waadna ogtihiin xaalku meeshuu maraya saa daraaddeed ummaddani waxay u baahan tahay waa tawba jamaaciya in si run ah loo toobad keeno ummaddan waxay u baahan tahay waa diinta kadib wataniya inay noqdaan dad wataniyiina oo dal leh ummaddan waxay u baahan tahay saqaafiya ummad wax garanaysa oo qalin wax ku soo mataqaanaa wax ku garanaysa inay noqoto ayay ummadda u baahan tahay intaa kadib waxay u baahan tahay inay ummadda noqoto ummad jidhnaxaya leh oo dadkeeda ka jidhnaxaya oo dubnaxaya leh oo dalkeeda dadkeeda wada qaxootiga ah iyo kuwa wada gaaloodi raba ummaddani waxay u baahan tahay ummad mustaqbalka dheer waxa loo soo maleegaya garan karta ummaddani waxay u baahan tahay inay ka soo dhexbaxaan ummad garanaysa war dadkani maxay rabaan waxay rabaan baddiina waxay rabaan berigiina waxay rabaan hawadiina waxay rabaan inaydan ciidan soomaaliyeed oo maxaa la yidhaahdaa xoog le inaydan mar dambe soomaaliya ka dhalanin haye oo hadduusa ka dhalanin marka maxaa adigu ku faa'idaa marka waa in lagu qabsado wey saa daraaddeed maanta inta waxyaaba loo soo xarxariiqo yaa la dhihayo dastuurkaa isku haysataan qodobkan dastuurkaa yidhi kana sidan buu yidhi kana sidan buu yidhi ayagibaa maantoo dhan walaa takunu kaalatii naqadad gazlaha min bacdi quwa islaantii laga sheegay doqonteeda qur-aan ka warramay lacagta lahayde intay shaqaalo soo kaxaysato ii furfura dhaado ii sameeya xarkaa yay galabtina intay mushaarka u qaysay dhalaa furfura berina halkii bay ka bilaabataa sidaasaan hadda ku soconnaaye ummaddan min jadiid bay u baahan tahay in dhiig cusub lagu shubo ummaddani waxay u baahan tahay in dhiig cusub loo abuuro ummaddani way masakhantaye waxay u baahan tahay in koobiga inta laga saaro originalka dib loogu soo celiyo ummaddani waxay u baahan tahay maskax cusub waxay u baahan tahay dhiig cusub waxay u baahan tahay akhlaaq cusub waxay u baahan tahay diinteeda in lagu xidho warkani waa war runtii aad muhiim u ah oo doodaha noocan oo kale ah in intii la furo dad cuqalo ah waxgarab ah caafimaad qaba qalbiyan u caafimaad qaba qabiil ahaan ka caafimaad qaba diin ahaan u caafimaad qaboon calmaani ahayn dal ahaan u caafimaad qaboo wadani ah dadkaasaa la doonayaa inay xunuusha ummadda ay u tilmaamaan laakiin su-aasha waxay tahay waxa la sheegayaa tilmaami wiil yaroo qori haystaa yidhi anaa kaa adag car same warku waa intaa alla tabaaraka watacaala waxaan ka baryaa inuu ummaddeena noo hagaajiyo dalkeena noo hagaajiyo diinteena noo hagaajiyo alla waxaan weydiisanaynaa inta dhimatay inuu unaxariisto inta xidhanna xabsiga uu ka soo daayo inta wareersanna ilaahay wareerka uu ka qaado inta walbahaarsanna ilahay walbahaarka uu ka qaado inta walwalsanna ilahay walwalka uu ka qaado inta awlaad rabtana ilahay awlaad caafimaad qabto oo dal iyo diin u shaqeeya allah tabaaraka watacaala hadduu khayr u yahay inuu ku arzuqo inta baadiyaysan ilahay inuu baadida ka soo hanuuniyo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaac arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba wasali allahuma وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.